السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن الله سبحانه وتعالى يا مهاد إسكاله إنه كل مية مدشان قروح ضبطان حلفت الدبالدقة دقمدا عصب الدارمي. أولا وحن سلام يا وزير كعفيسك هوينك دولة دينك الصومالي ده أنا جودي حبي جودي فلين حزب برواقة حبي جودي حريرك دولة دينك الصومالي ده وحن سلام يا قدومية محكمة دولة دينك الصومالي ده مدن علي بارود وحن سلام يا جودهان قلها وزير ده دولة دينك الصومالي ده كسوغا مدشان وحن سلام يا حبنها قلها وكيل دولة دينك الصومالي ده كسوغا حارونتا ساسو كلا وحن سلام يا قدوميها قبل كفافان مدن خضر أحمد نور يوجاميدا قبل كسوغا مدشان waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka deegaanka Soomaalida oo ugu horeeya garaadka guud garaad Maxamed garaad Kulmiye waxaan saasoo kala salaamayaa garaad Maxamed Amiin iyo odayaasha dhaqanka sharafta leh ee madasha ku sugan maanta ay nagu marti qaaday madashan quruxda badan inaan iskugu nimaadno assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan mahadnaq ballaaran soo jeedinayaa xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeya madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar go'aankii geesinimada lahaa ee la qaatay kaasoo lagu ilaalinayo midnimada iyo dadka deegaanka iyo guud ahaan kan dalkeena Itoobiya taas oo maanta ay tusaale cad u tahay in aan u dabaaldegayno xarun muhiim u ah ilaalada nabadgelyada deegaanka Soomaalida oo la yiraahdo Daarimi saasoo kale waxaad ogtiin xuduudaha dalka meelo muhiim ah ayaa degmooyin laga ansixiyay kuwaas oo lagu ilaalinayo midnimada dhuleed ee dalkeena Itoobiya guud ahaan waxaan rabaa inaan idiin sheego guud ahaan xukuumaddu waxay dadaal dheer ugu jirtaa in adeeg maamul oo dhammaystiran adeeg bulsho oo dhammaystiran in la siiyo bulshada deegaanka Soomaalida iyadoo lagu gaarsiinayo xarumaha fogfog ee ay joogaan go'aanka degmadana maanta wuxuu ka mid yahay kuwaas mid ka mid ah waxaan rabaa inaan idiin sheego hogaaminta maanta deegaanka joogta waa kuwa ku dhiiranaya inay ilaaliyaan dulkooga diintooda iyo dhaqankoogaba iyaga oo ilaalinaya guud ahaan tan dalkooga gaar ahaan tan deegaanka Soomaalida waxaan rabaa inaan dadka xaggan iskugu yimid maanta iyo guud ahaan dadka ka soo jeeda degmadan baa u sheego inay ilaaliyaan midnimada dadka inay ilaaliyaan midnimada dhulka in deegaanka annaga kuwa ka yimid degmooyinka dhadhow waxaan garab taaganahay dadka degmadan ka soo jeeda waxaan siinaynaa taageero dhammaystiran waxaan rajaynaynaa insha Allah in meeshan ay noqoto meel Soomaali oo dhan ay iskugu timaado waxaan rabaa inaan idiin sheego xukuumadda deegaanka Soomaalida xilliga joogta waa xukuumadda kaliya ee si dhab ah uga jawaabaysa baahiyaha bulshadu ay qabaan tamaamulka iyo tan adeegyada aasaasiga waxaan rajaynayaa doorashada soo socota inaad xisbigiina barwaaqo dooran doontaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته